صبح جمعة واجو انتو سندلاعين ayay boqolaal ciidamada deegaanka ah waxay weerar aan la sii ogeyn ku qaadeen difaaca aaga hore ee Maraaga oo ahayd halkii ay militariga Somaliland ka difaacayeen saldhiggii caanbaxay ee Gooja Cadde saldhiggii laga hogaaminayay dagaalkii Laascaanood ka socday ee lagu riiqmay saldhig Soomaali meel walba joogtaba ay dhegta ka taqaanay saldhig la holin waayay bilooyin badan saldhig ay Somaliland muddo dheer ka fikiraysay inay ciidankeeda saldhigtaan Gooja Cadde bilooyin badan ayay ahayd meesha kaliya ee reer Laascaanood ay balaayada ka fishaan Hargeysana waxay u ahayd halka laga go'aamiyo jaangoynta dagaalka Laascaanood ciidamada qarankana waxaan leeyahay geesiyaal baatiin ha ka daalina hawshiina wata hareerahan idin taagannahay annaga idin hor soconna waa ballan inaan inta nin inaga leeyahay aynu dagaalanno waxay sidoo kale ahayd xerada Gooja Cadde meel ay labada dhinacba ku gorgortamaan Somaliland waxay ogeyd haddii Gooja Cadde ay ka baxdo in gobolka Sool siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba ay ka sabrayso dadka deegaanada SSC Qaatumana waxay hubeen in Gooja Cadde ay tahay furaha guushooda iyo inay Somaliland kala furtaan subaxaasina waxaa kala dhaqaaqay qoryihii bilooyinka badan is eeganayay Somalilandna shan cad iyo calaacal ayaa looga faromaroojiyey ubuucday ciidankooda u ahayd udub dhaxaadkii dagaalka waxyaabaha mahadhada reebay hubkii halkaasi laga furtay geeridii dhacday labada dhinacba tiyo ay u dheer tahay tirada ciidanka halkaasi deganaa ee maxaabiis ahaanta maalinkaasi looga qabtay sanad ka hor maanta oo kale 25kii bishii Agoosto waxaa dhacay mid ka mid ah dagaaladii Soomaalida dhaxmaray kuwii ugu cuslaa maalinkaasi waxaa la soo qatimay magicii Gooja Cadde iyo militarigii halkan deganaaba bal aan u dhaqaaqno oo aan tagno xabsiga dhexe ee maxaabiistii halkan lagu qabtay ay ku xiran yihiin maxaabiista Somaliland ka xiran ee ku jirta xabsigan iga dambeeya xisbiga talada haya ee Kulmiye marnaba ismu uusan weydiinin sida muuqatana dan iyo muraad kama lahan oo ma muuqato inay ka maqan yihiin militarigii iyaga u dagaalamayay iyadoo ay taasi dheer tahay ololihii doorashada Somaliland oo hadda la galay subaxaasi waxaa gacanta dadka deegaanka galay raggii Laascaanood 7 bilood garaacayay madaxweyne ku-xigeenka ay geysaan iyo hadda madaxweynaha ay geysaan iyo hadda jaamac garaa Ismaaciil ay geysaan iyo hadda qawi dhageysaan waa odayaashaydi qodob si weyn loogu amaanay raggii deegaanka u dagaalamayay ayaa ahaa in xanuunkii dagaalkaasi uu keenay aysan marnaba ku qaadin dhalinyaradaasi inay aarsi ama dil u geystaan raggii ay isayeen ninkan maxaabiis ma aha dadkoodii baa gacanta ku haya waxba lama yeeli karo waan ognahay waxba laguma samayn karo dharka ha laga bedelo cuntaha la siiyo raggaa si fiican ha loo dhaqaaleeyo tusaalaha ugu fiicanna waa wiilashii jeegada u jarnayd ee gacanta ku soo dhigay Faysal Cabdi Bootaan oo hadda Laascaanood ku xiran da'yartaasoo dhammaan maxaabiistii ku soo simay hogaankii maamulka iyo kii dhaqankaba haddaan markii hore xarraga dagaalamayna maanta xarraga dagaalamayna waa la isxiniya taabanaya militarigii Somaliland ee sanad ka hor Gooja Cadde laga kiciyay wili waxaa taliyaha guud u ah Nuux Ismaaciil Taani oo aan xilkana laga qaadin lagulana xisaabtamin isagana uu iskiis isu casilin dadka arrimaha militariga ku takhasusayna su'aalaha isweydiinayaan ayaa waxay tahay wixii Gooja Cadde kaga dhacay militariga Somaliland inaan ilaa hadda uusan jirin qof lagula xisaabtamay Laascaanood waxaa ku yaala guri maqaamkiisa ay dadka deegaanku u arkaan astaantii iyo ardaagii sababta u ahaa waxa hadda ay haystaan dadka reer SSC Qaatumo gurigan aan hadda ka soo baxayo
waxaa deggan garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale oo kowdii bishii janawari sannadkii la soo dhaafay ee 2023 soo saaray mid ka mid ah go'aamadii horseeday inay isu yimaadaan isimada dhaqanka ee dhulkan oo ay adkeed sannado badan inay hal meel isugu yimaadaan hal go'aanna qaataan go'aankaasoo noqday mid masiiri ah oo maantadan la joogo ay dadka dhulkan ku nool ay aad u mahadiyeen waxaan u wateeyaba tolkay ooda soo jiri Soomaaliya ma wada fadhidaan ma cid baa idinka maqan nabar isna lama ilaawaan ah ayaa jira waa silicii iyo dhibkii laascaanood isbitaalka ku yaala ka muuqday 7 bilood halkaasoo ahayd hoyga dhaawacyadii boqolaalka ahaa ee madaafiicdii iyo rasaastaba ay haleeshay isbitaalkaasi maanta wuu hawanayaa dadka keliya ee la geeyana waa dhaawacyada shilalka gawaarida iyo dadka xanuunada rabbaaniga ah qaba sanad ka hor isbitaalkan wuxuu ahaa midkii ugu badnaa ee dhaawacyadii dagaalada la keenayay ama dagaal ha ku soo dhaawacmaan ama ha ku dhaawacmaan madaafiicdii magaaladan lala dhacayayba balse hadda isbitaalku wuu maran yahay oo waxaa jiifa dhowr qof oo loo keenay shilal gawaari iyo xanuunno kale oo si kale ugu dhacay u diyaar garooba doorashadii maadaama aynu marayno iminka doorashadii macamilka ahayd aynu iminka tijaabada ku jirno sanad kadib Somaliland maanta doorasho ayay isu diyaarinaysaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi weli kama uusan tanaasulin dagaal ninkii ay la jeclaadeen maanta istuumada dagaal u helayahay ama gala dagaalka ama orday yiraahdo soo waa laga raginayaa ku bishaarayso janankii raggan jabiyayna weli waa jananka ciidanka Somaliland walow hadda sida uu hadlayo uu ku daray in Ilaahay la tala saarto waxaan leeyahay inaan waqtigeega haddii Ilaahay yiraahdo in aan guusha soo ceshan doono oo halkii geen doono ayaan Ilaahay ka rajeynayaa Ilaahay hadduu yiraahdo dhinaca SSC qaatumo iyaga hadda waxaaba laga celcelinayaa baadiyihii ay sanado badan ka hor ka quusteen dhulkaas ay u arkaan xilli ay tabar yaraayeen in laga la wareegay sida iyaga dhaxdooda ay isu xalliyaan uguna muuqdaan inay noqon karaan maamul la mid ah maamulada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ka jira hooyadii geesiyada hay badale dhashay